kulanti waxaan wanaagsan saaxiibada qiimaha badanna ku soo dhawaada Goal 24 sheekooyin aad u xiiso badan ayaan idinkaga hayaa hadalhaynta suuqa iyo kooxaha waqtiga kan tartamada qaarada Yurub ee doonaya inay awood xoogan ay ku soo bandhigaan suuqa kala iibsiga sanadkan ku jirna ee 2022ka ciyaaryahan kooxda kubadda cagta Manchester United ee Paul Pogba ayaa ku sii dhawaanaya ku biirista kooxda kubadda cagta ee PSG. Laacibka u dhashay wadankaasi Faransiiska ee Paul Pogba ayaa muddo aad u fara badan la xiriirinaya hadalhayn ku aadan inuu dib ugu laaban doono horyaalka wadankaasi ee Faransiiska kadib markii la sheegay in xiriir aad u wanaagsan ciyaaryahan Paul Pogba uu leeyahay qaar kamid ah maamulka sare ee kooxda kubadda cagta PSG. Pogba wuxuu guud ahaan todobaadkii ugu dambeeyay cadeeyay ilaa iyo hadda in aan loo soo bandhigin heshiis ku saabsan inuu ku sii sugnaan doono kooxda kubadda cagta Manchester United. Laakiin waxa loo badinaya midkood inuu u dhaqaaq karo kooxaha kubadda cagta Juventus iyo Real Madrid. hadalhayntii ugu dambeysay ee wiilka France ee Pogba ayaa hadda ku sii jeeda in ciyaaraanka ay u dhowdahayba inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain. kooxda kubadda cagta Manchester City ka dhisan horyaalka wadankaasi Ingiriiska ee guud ahaan isaga baxday dalabkii ku aadanaa ciyaaraanka kooxda kubadda cagta AC Milano ee Theo Hernandez. Laacibkan ka tirsan kooxda kubadda cagta Milan ayaa todobaadkii ugu dambeeyay waxa la hadalhayay in ciyaaraankaasi uu qarka u saaran yahay u dhaqaaqista garoonka Etihad Stadium ee kooxda kubadda cagta Manchester City ay ku ciyaarto sida ay daawacday jirada Calcio Mercato. Laakiin xidigaasi Theo Hernandez ayaa yiri waxaan farxad weyn ku haystaa kooxda kubadda cagta AC Milan maadaama laacibkan si wanaagsan uu la qabsaday qab ciyaareedka horyaalka dalkaasi Talyaaniga waxaana uu laacibkaasi Hernandez uu yiri muhiimadeedu waxay tahay inaan waqti wacan la sii qaato kooxda Milano si aan ugu guuleysto koob aad u fara badan ayaa laga soo xigtay Theo Hernandez. laacibkani ayaa waxa aad loola xiriirinaya Manchester City, Chelsea iyo kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain. tababaraha kooxda kubadda cagta Roma macallin Jose Mourinho ayaa dhinaca kale waxa uu shaaca ka qaaday inay dib u soo cusboonaysiin doonaan wadahadaladii ay horay ugu doonayeen xidiga Xhaka. 29 jirkaani ayaa dhawaan markaa heshiis kordhin u sameeyay kooxda kubadda cagta ee Ganderska bishii Agosto. tababaraha kooxda kubadda cagta ee Roma Jose Mourinho ayaa muhiimadiisa xusaya in ciyaaraankaasi uu yahay xidiga wadna qabad ku noqon kara kooxaha ka dhisan horyaalka dalka Talyaaniga haddii Roma markaa ay ku soo guuleysato saxiixiisa. sidoo kale Roma waxa ay xoojinaysaa dalabka ku aadan xidiga Ndombele kaasi oo asna markaa kamid ah xidigaha waqtiga kan xadirka ka soo kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. macallin Jose wuxuu doonayaa in suurtagal kooxda Roma ay ka dhigi karto labada ciyaaryahan ee Xhaka iyo Ndombele inay imaan karaanba isku waqti garoonka kooxda kubadda cagta Roma. laacibkii hore ee kooxaha kubadda cagta Everton iyo Manchester United Marwan Fellaini ayaa u muuqan kara inuu dib uga soo laaban doono horyaalka wadankaasi Ingiriiska Premier League. haddaba sheekada xiisaha badan ee ciyaaraankaasi ku aadan waxay tahay Newcastle United waxay doonaysaaba in ciyaaraankaasi ay ku soo darto liiska xidigaha waqtiga kan xadirka aadka markaa u doonayaan. ciyaaraankan waqtiga kan xadirka ka dhex muuqanaya horyaalka wadankaasi Shiinaha ayaa ka mid noqonaya dhowrka xidig ay waqtigan shabada ay saarayso kooxda kubadda cagta Newcastle United. Marwan Fellaini England ayuu dib ugu soo laaban doonaa waaba haddii suurtagal ay noqoto in Newcastle United ay markaa ka helaan maamulka sare ee kooxda kubadda cagta Shandong kaasi oo markaa la tilmaamayo ciyaaraanka in heshiiska kooxda kubadda cagta ee Shandong uu ku xiran yahay tan iyo sanadka 2025. ciyaaraankan ayaa kooxda reer China wuxuu u suurtageliyay 30 gool 80 kulan oo ka soo dhex muuqday horyaalka dalkaasi Shiinaha ee China Premier League. Marwan Fellaini ayaa sidoo kale waxa uu xusayaa muhiimada gaar ah inay u leedahay inuu dib ugu soo laaban doono horyaalka wadankaasi Ingiriiska. hadda waxaa diyaarinaysa ololihii ugu dambeeyay kooxda kubadda cagta Newcastle United in ciyaaraankaasi reer Belgium Marwan Fellaini ay dib ugu soo celin doonaan Premier League. kooxda Atletico Madrid waxay doonaysaa inay markaa hakiyaan qaar ka mid ah ciyaartooyda ugu muhiimsan oo ka mid yahay xidiga Luis Suarez. xidigan reer Uruguay ee Luis Suarez ayaa markaa la shaacinaya in ay suurtagal noqon karto inuu u dhaqaaqo horyaalka MLS-ka wadankaasi Mareykanka. maxaa yeelay Atletico Madrid walwal xoogan ayaa ka haysta maadaama ciyaaraankan uu marayo waqtigii gabagabada heshiiskiisa kooxda kubadda cagta Atletico Madrid waxaana ay ka baqayaan maamulka Atletico Madrid in suuqa xorta uu kaga dhaqaaqo Luis Suarez. Suarez ayaa todobaadkii ugu dambeeyay wuxuu xiriir aad u wanaagsan ka helay qaar ka mid ah kooxaha ku xifaaltamaya horyaalka dalkaasi Mareykanka. Atletico Madrid waxay diyaarinaysaa todobaadka soo socda inay isku day xoogan sameyn doonaan xidigaha ugu muhiimsan ee ku sugan kooxda kubadda cagta Atletico Madridna la doonayo in heshiis kordhin loo sameeyo si kooxda hoos u dhacanan ugu imaanin. tababaraha kooxda Atletico Madrid ayaa abaanka la duldhacay 34 jirkan reer Uruguay ee Luis Suarez
waxaana uu ku tilmaamay geesiga kooxda Atletico Madrid. tababaraha kooxda kubadda cagta PSG Pochettino ayaa dhinaca kale waxa uu aaminsan yahay inuu dib ugu soo laaban doono horyaalka waddankaasi Ingiriiska ee Premier League. hadalayntii ugu dambeysay ee tababarahani waqtiga kan xaadirka hogaaminaya kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ee Pochettino ayaa aad u doonayay inuu qabto shaqada kooxda kubadda cagta Manchester United, waxaana uu diyaarinayaa qorshe ku aadan inuu ka bedelo macalinka ku meel gaarka kooxda kubadda cagta Manchester United. ogow Mauricio Pochettino wuxuu ku wargeliyay maamulka sare ee kooxda kubadda cagta PSG inuu ka tagayo haddii uu helo wada hadal dhab ay ku aadan kooxda kubadda cagta Manchester United oo ah in Pochettino uu markaa imaanayo stadiyaha Old Trafford ee kooxda kubadda cagta Manchester United. Leighton Sport ayaa xusaysa in ninka kan u dhashay dalkaasi Argentine uu baahi xoogan u qabo hamuun ku aadan in uu ku biiro kooxda kubadda cagta Manchester United, halka kooxda kubadda cagta PSG ayana ay baadi goobayso wada hadal ku aadan Zinedine Zidane inuu noqdo dooqooda koowaad ee bedelka macallin Mauricio Pochettino. heshiiska macallin Mauricio Pochettino kula jooga kooxda kubadda cagta PSG ayaa kaga eg oo kaliya bishii lixaad ee sanadka inuu ku guda jiro 2022, balse Pochettino kaliya ayaa sugaya dhawaaq ku aadan kooxda Manchester United iyo in markaa uu ku biiro stadiyaha Old Trafford maadaama bishii lixaad ee sanadkani uu heshiiskiisa kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain uu ku egyahay. qaar ka mid ah kooxaha ka dhisan horyaalka Premier League ayaa waxay aad u xiiseynayaan inay gacanta ku soo dhigaan ciiraanka Costi kaasio oo markaa noqonaya waqtiga kan xaadirka ciiraanka ku soo biiriya hadalaynta xidigaha suuqa markaa xilligan ka dhex muuqanaya. haddaba kooxahan kala ah Arsenal, West Ham United ayaa markaa doonaya inay la soo wareegaan laacibka ka tirsan kooxda kubadda cagta Frankfurt, waxaana la sheegayaa Philip Kostic in uu si weyn u soo jiitay qaab ciyaareedkiisa kooxaha aad u fara badan ee ka dhisan tartamada qaaradda Yurub sida Inter Milan, Fiorentina, Lazio, Sevilla iyo kooxda kubadda cagta Atletico Madrid. heshiiska 29 jirkan uu kula joogo kooxda kubadda cagta Frankfurt waxa uu soconayaa tan iyo sanadka 2023. koox walbana waxa ay haminaysaa inay markaa la soo wareegto saxiixiisa, balse dadaalka xoogan ee wadaan labada kooxood ee ka dhisan Premier League Arsenal iyo West Ham United ayaa ka dhigaysa fursad aad u wanaagsan maadaama ay ka faa'iideysanayaan in ciiraankani ka dhaadhiciyaan qaabka ugu soo dhaqaaqi lahaa horyaalka waddankaasi Ingiriiska. hadalheynta laacibkan ee Philip Kostic waxa uu dhex yaala horyaalada Premier League, Serie A iyo La Ligaha waddankaasi Isbaanishka. ugu dambeyntiina kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa markaa lagu wargeliyay in waqtiga kan xaadirka ay u dhaqaaqaan difaaca kooxda kubadda cagta PSG Kimpembe. wiilkan reer France ayaa aad markaa ugu dhibaatoonaya mustaqbal ahaan in waqti kale uu la sii qaato kooxdiisa reer France ee Paris Saint-Germain maadaama ay saaxiibo dhow yihiin tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea Thomas Tuchel. taasi ayaan u suurtagelin kartaa Kimpembe in markaa uu soo dhaqaaqo Premier League. kaliya tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea Thomas Tuchel waxa uu leeyahay kama hayo wax jawaab ah maamulka kooxda kubadda cagta PSG, waxaana ka warsugi doonaa bal go'aanka ugu dambeeya mustaqbal ahaan ay ka qaadan doonaan xidigaasi Kimpembe. laacibkan ayaa heshiis kula jiro kooxda PSG tan iyo sanadka 2024, balse Thomas Tuchel waxa uu sheegay in ay indhaynayso mustaqbalka ciiraankaasi Kimpembe haddii ciiraankani qorshe uu ka doonayo maamulka kooxda kubadda cagta PSG uu ku guuldareysto. waxaaba loo yaabaa in Kimpembe uu u soo dhaqaaqo gegada Stamford Bridge maadaama kalsooni xoogan uu ku qabo awoodiisana uu ku kalsoon yahay tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea Thomas Tuchel.